السلام عليكم. موضوعani waxa uu gaar u yahay dumarka isla markaana waxa uu ku saabsan yahay sida loo weyneeyo dabada ama barida dumarka. Sida daraadeed daba weyn oo qurux badan inaad yeelataa waa midda aynu maanta ka hadlayno. Ugu horeyn xasuusnow waxaad cunto ayuunbaa ku qaabeeya. Sida daraadeed haddaad rabto dabadaada ama baridaada inay yeelato qaab qurux badan oo soo jiidasho leh, ogsoonow cunista cuntada dabiiciga ah waxay muhiim u tahay qaab dhismeedka jidhkaaga. Haddaba maanta waxaan gabdhaha iyo dumarka Soomaalida guud ahaan la wadaagaya talaabooyin qiimo leh oo kaa caawin doona sidii aad u samaysan lahayd bari ama daba qurux badan, taasoo laga yaabaa inaad marar badan ku taami jirtay ama ku riyoon jirtay inaad mar uun yeelato daba weyn oo shidan. sida caadiga qofku marka uu rabo inuu miisaankiisa guud ee jidhkiisa uu kordhiyo waxa uu cunaa cunto badan, laakiin taa beddelkeeda gabdhaha marka ay rabaan inay dabadooda weyneeyaan waa inay cuntada ay cunayaan ahaataa qadar aan badnayn, ama si kale haddaan u yidhaahdo waa inay iska yareeyaan cuntada badan, maxaa yeelay waxaa isku khaldamaya ama lumaya shakligii guud ee barida dumarka. dhinaca kale gabadh kastoo rabta inay dabadeeda weynayso waa inay cuntaa khudaarta ugu yaraan qadar aad u yar maalin kasta, inkastoo inta badan lagu taliyo in qofta dumara khudaarta ay cunto 3 jeer maalintii ama 5 jeer maalin kasta. balse dhinaca kale adigoo cunaya cuntooyinka dunida looga yaqaano fast food ama junk food ee Soomaali ahaan aynu u naqaano cuntooyinka fudfudud ama cuntooyinka qashinka ah, ha filanin inaad dabadaada weynayso isla markaana baridaada ka dhigto mid qurux badan oo soo jiidasho leh, laakiin waxaad burburinaysaa guud ahaan quruxda jidhkaaga markaad cuntooyinka cunayso. balse dhinaca kalena markaad cuntooyinka dabiiciga cunayso xasuusnow inaad hesho oo keliya daba weyn, laakiin aad iska ilaaliso calool weyn iyo gacmo waaweyn, luga waaweyn iyo guud ahaan cayil iyo buurnaan. intaa kadib waxaan halkan kugu soo gudbinayaa cuntooyinka dabiiciga ee si dabiiciya u weyneeya isla markaana qaabeeya dabada dumarka iyo weliba jimicsiga loogu talagalay in lagu weyneeyo laguna qurxiyo dabada dumarka. ugu horeyn haddaynu soo horeysiino jimicsiga, waxaad samaynaysaa jimicsiga loo yaqaano squat. haddaba haddii aad jeceshay iyo haddii aad necab tahayba waa jimicsiga ugu wanaagsan ee kobciya ee xoojiya murqaha barida ee dumarka. sidaa daraadeed jimicsigan waa midka ugu badan ee dumarka lagula taliya inay sameeyaan si ay u yeeshaan daba weyn oo shidnaanteeda la yaabay. dhinaca kalena waxaad samaynaysaa nooca jimicsi ee isagana loo yaqaano hip thrust. sidaa darteed dumarka qaar waxa ay leeyihiin waxa uu ka wanaagsan yahay jimicsiga aynu ka soo hadalnay ee loo yaqaano squats. sababta ay ku andacoonayaanna waxay tahay waxa uu ka shaqaysiiyaa isla markaana xoojiyaa murqaha barida ee dumarka, sidaana waxa uu ku siiyaa dumarka bari degdega oo weyn. geesta kalena jimicsiga loo yaqaano glute bridges ayaa isaguna ka mid ah waxyaabaha dumarka daba weyn u yeela. haddaba jimicsigani waa hordhac weyn oo la sameeyo inta aan la bilaabin jimicsigii hore ee aynu ka soo hadalnay ee loo yaqaano hip thrust. sidaa darteed in badan lama sii wado marka jimicsigan la samaynayo, laakiin gabadhu marka ay doonayso inay daba weyn yeelato waa inay jimicsigan samaysaa qadar xoogaya. dhinaca kalena waxaa jira jimicsiga loo yaqaano glute kickbacks. haddaba jimicsigani waa midka keliya ee soo kuusa dabada dumarka, sidaa darteed gabdhuhu waxa ay dareemaan kalsooni gaar ahaan marka ay jimicsigan sameeyaan, maxaa yeelay waxay arkayaan dabadii oo weynaatay isla markaana adkaatay. waxaa kaloo jira jimicsiga loo yaqaano lunge. haddaba jimicsigani waa mid ka mid a jimicsiyada ugu wanaagsan ee dumarku ay dabada ku adkeeyaan isla markaana u yeela daba weyn. sidaa darteedna jimicsigan ood inta badan samaysaa waxa uu kaa caawinayaa inaad gaadho riyadaadii ahayd inaad mar uun aragto dabadaada oo weyn isla markaana qaab iyo qurux leh. iminkii haatana haddii aad ka mid tahay gabdhaha raadinaya daba weyn oo qurux badan, ku soo dhawow cuntooyinka dabiiciga ee kaa caawinaya inaad yeelato daba weyn. ukunta ama beedka. ukunta waa mid ka mid a qaababka ugu wanaagsan uguna caafimaadka badan oo kaa caawin kara in dabadaada weynaato, waana mid aad u fiican oo tamar laga helo oo gacan ka geysanaysa xoojinta hawshaas. sidaa daraaddeed gabadh yahay haddii aanad dhibaato caafimaad ku qabin ukunta isla markaana aad rabto inaad yeelato daba weyn, waa inaad ukunta cunisteeda joogto ka dhigataa, maxaa yeelay ukunta waxay hodan ku tahay borotiin waxayna kaa caawinaysaa dayactirka muruqyada.
cunista ukunta ama beedkana waxaa ugu wanaagsan in la cuno subaxdii si ay kaaga caawiso inaad awood u hesho maalinta oo dhan iyo xilliga aad shaqaynayso. lowska ayaa isaguna ka mid a cuntooyinka dabada dumarka weyneeya, maxaa yeelay lowska waxaa laga helaa oo ku jirta dufan wanaagsan iyo borotiin badan, wuxuuna lowsku kaa caawinayaa inuu hoos u dhigo heerka baruurta islamarkaana dabadda keena oo uu soo saaro qaabdhismeedka guud ee badhidaada. sidaa daraaddeed lowsku waxa uu hodan ku yahay fiitamiino badan iyo macaadiin badan. sidoo kale kalluunka ayaa ka mid a cuntooyinka dabiiciga ee dabada dumarka weyneeya, laakiin sababtu maxay tahay? haddaba kani waa ilo khaas ah oo loogu talagalay kobcinta jidhka. qaar ka mid a kalluunka kuwa ugu caansan waa tuuna iyo tilaabiya iyo salmon. sidaa daraaddeed kalluunka waa mid ka mid a cuntooyinka ugu fiican ee ay ku karaan jidhka intiisa badan, wuxuuna kaa caawinayaa in dabadaada weynaato, maxaa yeelay waxa ku jira saliidda loo yaqaano omega 3 taasoo loo yaqaano dufan caafimaad leh. haddaba gabadh yahay, si aad u kordhiso xajmiga bararka dabadaada islamarkaana dabadaadu ay u noqoto mid adag oo kuusan, waa inaad kordhisaa qaadashada kalooriga. taasi waa sababta kalluunka uu noqon doono mid ka mid a cuntooyinka ugu fiican ee ay u badan tahay macaanka koloriska laakiin nafaqo leh. sidaa daraaddeedna cunista kalluunka ayaa hubaal ka dhigaysa doorka kordhinta qaadashada kaloorigaaga inta aad jidhkaaga siinayso dufan wanaagsan. dhinaca kale digaagga waa mid ka mid a ilaha ugu fiican ee borotiinka laga helo islamarkaana dabada dumarka kobciya. haddaba waxaa loo diyaaran karaa qaabab kala duwan, kaas oo ka dhigi doona cunto aad u wanaagsan oo loogu talagalay kuwa doonaya inay kordhiyaan qaadashada kalooriga. sidaa daraaddeed digaagga waxaa ku jirta borotiinkaasoo faa'iido u leh korriimada xubnaha jidhkaaga. haddaba cunista digaagga marka loo eego hilibka gaduudan ama casaanka ah waa doorasho fiican, sababtoo ah waxa ay leedahay ama waxa uu leeyahay kolestarool aad u yar. caanaha ayaa iyaguna ka mid a cuntooyinka dumarka daba weyn siiya. sidaa daraaddeed caanaha waa mid ka mid a cuntooyinka ugu fiican, maxaa yeelay waxaa ka buuxa nafaqooyin badan. sidoo kale waxay ka kooban yihiin nafaqooyin yaryar oo kaa caawin kara kordhinta muruqyada dabadaada. dhinaca kale caanaha waxay kaloo qabanayaan shaqo fiican oo hoos u dhigaysa heerka dhiigga ee kolestaroolka, waxayna yaraynayaan halista wadna xanuunka. sidoo kale waxay yareeyaan halista nooca labaad ee sonkorowga. afakaadhaha ayaa isaguna ka mid a cuntooyinka dumarka siiya daba weyn. haddaba afakaadha ma laha ilo wanaagsan oo borotiin ah, laakiin waxa uu leeyahay dufan badan. dufankaas ayaa kaa caawin doona inaad ka faa'iidaysato kuna yarayso kolestaroolka xun ee jidhkaaga. haddaba afakaadha waxa uu ka kooban yahay fiitamiino badan, botashiyam, faibar, amino acid, kuwaasoo kaa caawin doona inaad hesho daba weyn. haddaba gabadh yahay, markaad rabto inaad dabadaada weynayso waxaad u baahan tahay xaddi aad u badan oo borotiina, kuwaasood ka heli karto cuntooyinkaaga si aad xajmiga dabadaada u kordhiso ama u weynayso. sidaa daraaddeed hilibka shiilan ee loo yaqaano isteega waa ilo aad u xoog badan oo laga helo borotiinka, islamarkaana waxa uu kordhiyaa cabirka dabada. sidaa daraaddeedna haddii aad u baahan tahay inaad dabadaada kordhiso waa inaad ku dadaashaa cuntadaada qaybo ka mida inaad hilibkaa ku darsato. baradhada macaan ayaa iyaduna ka mid a waxyaabaha sida dabiiciga dabada dumarka u weynaysa. haddaba halkii aad ka cuni lahayd waxyaabo daqiiq ka samaysan, waa inaad cuntaa kaalari nafaqa leh kaasood ka helayso baradhada macaan. baradhada macaanna waxay kaa caawinaysaa inaad hesho daba weyn oo kuusan oo weliba adag. khudaarta cagaaran ayaa iyaduna ka mid a waxyaabaha dabada dumarka weyneeya, laakiin dhinaca kale haddii aad ka fakaraysa in khudaarta cagaarani ay miisaankaba kaa ridayso, taasi waa khalad. waa inaad mar kale fakartaa oo weliba xasuuso in cuntadu ay weynaysiiso dabada dumarka, laakiin waxaa loo baahan yahay in la helo xaddi aad u badan oo amino acidisa, taasoo ilaha ugu wanaagsan laga heli karo khudaarta cagaaran. sidaa darteed khudaarta cagaaran kuwa ugu wanaagsan eed ka qaadan karto waxaa ka mid a tamaandhada, midhaha loo yaqaano baari, qajaarka, barakooliga iyo brussels sprout midka loo yaqaano. dhinaca kalena bariiska kafayga ayaa ka mid a waxyaabaha dabada dumarka weyneeya. haddaba bariiska kafayga waa mid ka mid a waxyaabaha ugu fiican ee laga helo faibarta ama karbonhaydraytka, wuxuuna si gaara ugu fiican yahay cunista kadib inaad ku shaqayso. haddaba bariiskan inaguma cusba, soomaali badanna way isticmaashaa, laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad jidhkaaga siiso shiidaalka loo baahan yahay si loo xoojiyo murqaha dabadaada. dhinaca kalena bariiskan kafayga waxa uu wanaagsan yahay caafimaadka wadnaha,
geesta kalena waxa uu qani ku yahay maadada loo yaqaano selenium, sidoo kalena waxa uu qani ku yahay maadada loo yaqaano magnesium. Wuxuu kaloo bariiskani hoos u dhigaa khatarta cudurka sonkorta, sidoo kalena waa bariis u wanaagsan carruurta yaryar oo la siin karo xilliga ay yaryar yihiin. Sidoo kalena waxa uu nidaamiyaa kolestaroolka, sidoo kalena waxa uu la dagaalamaa cudurka kansarka.